أمانة والله استعماله شرع وحو يقان أمانة الوديعة فقه إسلامي قام مقع عصي هذا قف باكورنا يوحني هاي والله عق وعلى أدون كلا ونعمودي أنه البله إناد استعماشا وحرام من بنانا إلا بإذن المودع قف كيلا هاي ملكي لها قد يكون فصحا مويان مثل الموت كاي حولها العقتها ليسو ديبانيو marka doonaysa inaad isticmaasho ama xawaalada ay doonaysa inaad isticmaasho ama banku doonayo inuu isticmaalo ama bakhaarku doonayo waa inuu fasax weydiistaa iyo ogolaansho cidii iska lahayd hantidan oday iyo habar iyo midku doonaya ha ahaado waana in loo sheegaa in laga amahanayo narinta loo sahla maayo waa inuu idhaahdaa amaanadan sideeda uma hayn karo anaad igu leedo ka amahday ayaantaad u baahatana waan ku siinayaa waana ka faa'iideysanayaa mar haddii ay de amaahti qoladii la yiraahdo waan ka amaahday ana isticmaalaya way markaad u baahatana anaad igu leedahay haddii ay de luntana ana la igu leeyahay qofka waa insa lagu cadeeyaa laakiin qadiyadan ah wixii in la iska isticmaalo oo qofkiina laga qariyo waxa ka dhalanaya wixii aad ka soo saartay faa'iido inuu isagu yeesho isaga yeelanaya amaana lacag hadii lagu dhiibto 2 sanadood ku shaqeynayso 2 sanaba intood xisaabisa faa'iidadii ka soo baxday qofkii u shub oo u celi waxa uu daliil rasuulku sallallahu alayhi wasallam in asxaabi uu dirtay neef udxiyaa inuu soo iibiyo lacagtii uu dhiibay 2 neef buu ka soo iibiyay lacagtiina uu soo celiyay neefkiina uu keenay labadaba rasuulku qaatay ee waa raasamaalkii faa'iidadii labadaba nabiga qaatay alayhi salaatu wasalaam ninkii ma qaadan